السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومالينيمو سنين تاريخنا كوبيغان تهي سدحدا بيشا لبعض سنة كلابد كونشاني لبعضنكا عشر كينا مانتا وها وياهي waxaan qaadan doonaa nobe parole erayo cusub marka erayadan halkaan ku qoran yaanan dhayalsanin ama aanan fududeysanin waa erayo muhiim u ah nolol maalmeedka marka laga hadlayo luqadda caadiga inta badan bulshadu ay isticmaasho qaasatan dadka xaafadaha ka shaqeeya ama shaqooyinka ka shaqeeya baarka ama maxaan ku rahaa hoteelada kale ama caadiyan marka aad rabto inaad wax ka dalbato meel baar markaad gasho kale ama meel dukaan aad rabto inaad wax ka iibsato marka dolce erayga kuwa dolce macnihiisu wuxuu yahay waa macaan dolce anaga inta badan Soomaalidu isticmaashaa qaasatan qaybta koonfurta ah erayga marka asalkiisu wuxuu ahaa Talyaani uu ka yimaaday waa la Soomaaliyeeyay salato cusbaysan milix leh cusbo marka waa raashinka ama mataqaana qudaarta kale ama waxaan ku raahdaa saladka kale marka la sameynayo cusbada markay ku badato ama lagu leeyahay cusbo ma ku jirto waxa leedahay si salato marka waa cusbeysan yahay oo cusbaa ku jirta amaro waa xalaal ama qaraar saa u taqaanid amaro waa xalaal ama qaraar erayga qaraarka marka aad rabto shaygan waxaan soo qaadan uu macaan yahay waxa bilcagsigiisa noqonaya amaro oo macnaheedu uu yahay waa xalaal ama waa qaraar asparo waa dhanaan marka aad rabto shaygan waa dhanaan yahay oo dhadhankiisa macaan ama han xalaal ama qaraar ma ahan oo aad rabto inaad tiraahdo waa dhanaan yahay afka Talyaaniga waxa lagu leeyahay markaas asparo piccante waa kuleylku waa kee waa marka basbaaska oo kale aad tilmaamayso waa leedahay shaygan raashinkan ama suugadan way kulusha macnaheedu uu yahay kuleylkii dabka ma ahan waxa ka hadlaysa wax ku jira oo marka aad rabto aad dareensiinayso afkaagi inuu xoogaa dareemayo kuleyl marka piccante ayaa loogu dhawaaqayaa labadaasi g horaan usoo qaadanay marka piccante sida kaadi oo kale loogu dhawaaqayaa marka macnaheedu wuxuu yahay piccante kulul waa marka laga hadlayo basbaaska suuko erayga suuko waa casiirka laftirkiisa dabcan waxaan u maleynaa eray asalkiisu Soomaali yahay ugu maleynaa inuu yahay waxaa laga keenay luqadda carabiga marka afka Talyaaniga sida guud cabitaanka waxaa lagu dhahaa bevanda marka waa isu wadarta guud oo cabitaanka oo la soo wada geeyay cabitaanada meeshaan ka leenahay kadib markaas uu kala qaaday marka afka Talyaaniga laga hadlayo suuko di frutta waa cabitaan ka samaysan qudaarta marka suuko casiirka aan u qaadanaynaa kulay muhiim waxa ah inaan isla faano dabcan marka aad gasho meel baar oo kale ama meel maqaayad ka shaqeynaysid dalabka lagu weydiinaa waxa kamid ah ketibadi suuko ke gusto shavete macnaheedu marka gusto macna dhadhanka ah haysan suuko di frutta pere maxaan ku raahdaa mela cedra suuko marka casiirkii burro marka waa subaga san filayo waxaan u maleynayaa erayadan kooban inaad mataqaanaa ka faa'iideen cashirkeena maanta halkaas aan kusoo koobaynaa inta aan ku kulmeyno cashirka mid lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo hasaate mar walba waxaan naga xasuusinaa in aad naga ilaawin sheerta laagta wax kaliya oo aan anagu mataqaanaa aan idin weydiisanayno waa intaasi isla ahaantaana aad gaarsiisaan asxaabtiina inteeda kale si ay uga faa'iideystaan waad mahadsantiin